lafahana ilmaha wuu u dhisayaa casho iyo qado iyo quraac iyo casriye wax kastoo aad rabtid ayay ku noqonayaa qof walbana way u fiican tahay sababtoo ah protein baa ka buuxa ukuntii baa ka buuxda cheese-kii baa ka buuxa maasha Allah inaba caadi ma ahan waliba ilmaha si aad iyo aad ah ugu fiican tahay oo ay u anfacaysaa insha Allah ta'ala dadka ilmaha haysta saan ognahayba ilmuhu waxay jecel yihiin waxyaabaha burburka laga sameeyay oo sooskiya wax lagu daray waxay si jecel yihiin bariis iyo baasto sida dadkeena waaweyn oo hadaan bariis iyo baasto cuninba dee aysan nooba ahayn caruurta ma ahan way naga duwan yihiin waliba caruuraha qurbaha jooga ayagu waxaan ismariskan iyo waxaan iyo biitsada iyo rootigan la ismarinayo waxyaabahaas ay barteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا غيرت شرفت لما الكستو دوني الدعلة دي الدافيات أتكتشوكتن وغارة انتي يقول صلي حبيبكنا محمد صلى الله عليه وسلم ولاشين حاوتاك عمري داري عبادة صوباني عافمات قبا إذن رجينا ميل كستو دوني دا أتكتشوكتن إلا إذن كن معايا برارك وارا ما انتو حين سميسانينا بيتسان سميسانينا بيتسا هوم kurga pizza yariisaan ku sameysanaynaa rooti ka dhig waxa rabtid ka dhig caysh ugu yeer halkan waxaan ku haysanaa baaquligaana soo dhigtay hal koob oo buraan ku shubtay qaado fixisa ah waxaan kaloo ku shubtay qaado haafkeeda cusba hal qaado sokor ah iyo sidoo kale waxaan ku shubtay qaadada haafkeeda oo ah vanilla ama carfiso waxaan kaloo ku shubtay qaado haafkeeda iyadana oo subda ah subda ama butter ama subag ama saliid hadba kii aad rabto ayaad ku darsan kartaa hal xabo ukunana waan ku darsaday ukunta hadaad haysan daruuri ma ahan caana hadaa haysatid baa ku darsan kartaa subagana anigu isticmaalay butterka hadana hadiyuna markaas uu ku olin ama aadan jeclayn saliid yar baad ku darsan kartaa saliidu waxay siinaysaa in uu jileec ku noqdo burkaaga oo uu si fiican isugu ka qabsado sidoo kale ukuntuna protein bay leedahay saan ognahayba sokortu dhadhan yar bay ku siinaysaa carfisadu inay wax yani udug beeyadana ku siinaysaa waxaan lagu darayo dhan la iskaga ma daray macnaa loo yeelaya biyo qandacahan ku darsaday ma sha Allah waan isdhex marmarinaya oo waan xashaya si uu isku kay galo si fiican baan isku dhex galiyay oon u soo xashay waakana burkeena haddana 5 ilaa 10 daqiiqan daboolayna hadii la haydmo waa kan uu noo soo faxay ma sha Allah si qurux badan buu soo faxay haddana baradhadii iyo qudaartii aan dabka ku saaran aan dusha ka saaran lahayn oo ku hagaagsan lahayn baan dabka noo saaran digsigana waxaan ku soo shubtay 3 xabo baradho waaweyn cabaar baan karinayaa inay xoog iga jilicdana ma rabo laakiin inay si fiican igu bislaataan rabo hadii Ilaahay idmo meeshaan waxaan ku soo jarjartay waa 3 xabo oo barbarooniga saddexdiisa nooc guduud iyo cagaar iyo jaalle hal xabo basal weyn oo basal cad iyo basal cagaar ama basal baar iyo kabsar caleen iyo toon kulligood qudaartii waa isku geeyay dabkaan saaray digsiga wax yar saliidaan ku soo shubtay wax hilib ma isticmaalin waad isticmaali kartaa hilib qasama inaad qudaar kaliya isticmaasho hilibka shiidan baa fiican hadii aad haysato inaad isticmaasho in yar oo cusba baan ku shubtay haddana xawaashadan ku dardarsanayaa waxaan ku darayaa waa maraq digaaga qudaarta ka samaysan اللهم صل على محمد وحن كلو كدري وفي الفيش مدو أو بضضة سيدو كلا بروكلي باودر ويه وأصنا وقدار شيدن برددي أنسو بربريه أن حق أنا أصاب بتشقين لكن تاجن لكن أنا سو بربريه وحير سو تشك سيه من كوسو درصدي صابت برددي إن مشاريع عمل كان نقطة ما فينا بركنا وكنا صحن كان صارني tomato ketchup ayaan dusha ka marinayaa hadii Ilaahay idmo wixii kale oo haysato ayaad ka marin kartaa ama aad marka aad ugu danaynayso jeceshahay ayaad dusha ka marsan kartaa suuga caadi ah hadaa dusha ka marin kartaa marka muhiimadu waxa weeye inuu taste fiican iyo dhadhan ku lahaado haddana waan ku soo dhameeyay oo sidaasan dhamaan ugu soo kaamilay waxaan guda galeynaa inaan qudaarteeni aan dusha ka saarno oo aan sidii hilibkii oo kale ugu sharaxno si loogu cuno hadii Allah idmo sababta burka hadii aan waxba la saarin lama cuni karo pizza waxba uma oga pizzada caadiga ah run ahaantii aad buu uga macaan yahay ilmuhuna way jecel yihiin qof walbana way maaragtay way ka helaysaa waliba markii aad caruur haysato si aad bay ku sii anfacaysaa
baradhadan iyo waxyaabahan qudaartan oo dhan aad bay ugu fiican yihiin ilmaha waliba qurbaha ku koray aad bay u jecel yihiin waxyaabahan ismariska iyo pizza iyo waxyaabaha caynkaas oo sideena bariis iyo pasta ma jecla. hadda saxaabay waan ku soo dhameeyay sidaas aan ugu soo wada dhameeyay wax yar oo cheese ah ayaan dusha ka marinayaa. cheese-ku aad buu u fiican yahay, laftana wuu u fiican yahay, korinta ilmahana wuu u fiican yahay. mar walba waan idin sheegaa haddii aad markaas cheese isticmaasho ilmaha inaad ugu roonaato. baradhada iyo cheese-ka iyo ilmaha aad bay ugu fiican yihiin. laftay duxsiyaan oo laftay soo koriyaan labaduba. saasaan cheese-ka hadda ugu kor sharaxnay, kamana badin. wax yar waxaan rabaa guduud ii siiyo oo dabka iyo isla qabsadaan. hadda dabka ayaan ka soo bixinay oo waa kana isagoo noo soo bislaaday oo maasha allah sida quruxda badan bay ku soo baxday. wax la qiyaasi karo ma ahan runtii. isha wixii kaa deeqa ayaa urka kaa deeqa. haddana saxankaan saarayna haddii ilaahay idmo oo kor iyo hoosba saasay isaga eg tahay. cashadeenna wax caadiya ma ahan runtii. mar haddii ay isha kaa qanciso waan rajeynayaa inay siday isha iga qancisay idinkana isha idinka qancinayso. wixii dhadhamin iyo cunitaanana anaa idin jooga insha allahu tacaala. adinka xaggiina ma ahan, laakiin commentiga kusoo reeba sidaad u aragtaan iyo fikradihiina iyo saad uga hesheen insha allah. saaxiibadiina waad la sii wadaagi doontaan. saxankaan saaranaynaa si aan sooskii aan u diyaarsan lahayn aan ugu darsano ama aan u diyaarsano hadduu ilaahay idmo qaabkii aan cashadeena u diyaarin lahayn u cuni lahayn. 3 xabaan hadda qaatay oon saxanka saartay. marka waxaan u sameynayaa runtii caadi ma carafta ma malayn kartid. waxaan u sameysanaynaa marka insha allahu tacaala sooskii aan ku cuni lahayn hadduu alla idmo ayaan u sameysanaynaa. ayadoo sidaan xataa way kugu soconaysaa sababtoo ah waxeedii way u kaamilan yihiin, way jilicsan tahay, soft weeye. laakiin hadda waxaan ku shubanaynaa waa tomato ketchup iyo oo hal qaado qiyaastii camal iyo hal qaado oo mayonnaise ah ayaan isku darsanaynaa hadduu ilaahay idmo. haddii aadan jeclayn wax dhiba ma lahan, qasama daruuri maaha. wax kastoo aad jeceshaad ku cuni kartaa, sideedana waad ku cuni kartaa, laakiin waa ku yara qurxinaynaa ma ahane. sideedaanayba sooskeedii iyo nimcadeedii oo dhan ay u wadataa. sidaas quruxda badan ayaanan waxaan ka dhignay sooskii markaan qasnay uu noogu soo baxay maasha allah. carafta runtii ma malayn kartid cashadan, guriga dhan carafteeda haysata. cajiib weeye cajiib cajiib baan maqli jir. markaa saxaabey haddana insha allah waan cunaynaa. waa idin testi garaynaya sideena horeba waa ku konfiisa kee cunaa kii weyn baan doortay. marka xabadaasa insha allah calaf allah igu dare aan cunayaa. sooska sidaasaan hal qaado iyo haaf ama 2 haaf dusha uga shubanaysaa. haddana bismillaah. runtii wax caadiya ma ahan, wax la soo koobi karo la qiyaasi karo ma ahan macaankeeda. laygta ha ilaawinina, 100% waa 100 ana idinka huba. haddii aad tan oo kale kariso runtii mar walba ayadaad u xiisaysaa, cunto kaleba xiiso kuma qabanayso. videoga share gareeya, saaxiibadiin la sii wadaaga, subscribe-ka noo saara fadlan adinka oo mahadsan. walaalaheena qaaliga aad iyo aad ayaan runtii ugu farxaa markaan arko walaalo cusub oo igu soo biray oo subscribe ii saaray. subscribe-ku waa caadada YouTube. shaqada YouTube oo dhan baa waxay tahay in subscribe la isku saaro. lacag dadka kama barino haddaan reer YouTube nahay. waxaan ka barina caawinaadeenu waxa weeyaan subscribe noo saara. marka subscribe-ku waa bilaash, beesa ma ahan. ha ilaawin, ha baqaylin, waxba kaama uu nusqaaminayo insha allahu tacaala. annagana waxbuu noo taraaya. cashada quruxda badanna qado iyo casho iyo casariye intaba waad uga dhigi kartaa. qaraabada iyo asxaabta, qoyska iyo ciyaalka intaba martida markay ku imaanaysaad ku macsuumi kartaa. runtii isha ayay kaa deeqaysaa xaqiiqatan, uurkuna kasii daran. maasha allah dee waxaan idin iri ha laga faa'iidaysto.
استوى الدجاج ama hilib digaag oo shafka digaaga oo soo jarjaray si yar u soo jarjaray way aan kuskus yar ka dhigay ma sha Allah suqaar amal baan u sameeyay duu ilaahay idmo qudaartan waa u jeedaan ayadana marka hore waxaan iska karkarinayaa digaaga biyo yar oo karsan baan cabaar iyo cusbaan dabka la saaray kadibna waan ka dejinayaa sidoo kale qudaar baan haystaa meeshan karooto basal tuun bataati macaan digsi baan hadda saliid ku soo shubtay wax yar oo saliid aan badnayn kabacdina toon iyo basal aan soo jarjaray ayaan ku shubay intaan wax yar shiilaya ilaa ay guduud iga noqoto saanay brownkaas igu noqotay ama golden haddana waxaan ku darsanayaa qudaartan aan ku darsanayaa waa barbarooniyo basbaas karooto iyo bataati macaan كان موجود في المنطقة المعانتي الكروتولي الكشكي كونتي بربرونيلي الكاشكي كان موجود في اليمن هذا نوع من كتر إنه الدجاجي أو مركي هراء بيا كرسن كسوها في الماء عم برتن كود لجنا حواشي دي بنقدر صنع هذا ورود بسباس بابريكا حواشي فرا بدن اسكو جرا فلفل شيدان لا افريشن حواش او كلا نوعا اديga xawaashka aad haysato ku darsan kartaa duu ilaahay idmo kabsar caleentii waan ku soo darsaday hadda waa noo diyaar digaageeni iyo suugadeeni haddana insha Allah waxaan ku darsanaa kareemkan ama maxaan iraahdaa cheese-kan oo inta lagu kariyo hal qaado ah halka qaadaan ku darsaday si fiican baan u dhexgelinayaa oo ugu dhexwalaaqayo sida quruxda badan bay ku soo baxday suugadeeni haddana dabkan ka qaadaynaa waa u dhamaatay wax u dhiman ma lahan insha Allah videoga noo like gareeya subscribe-ka noo saar aad ba u mahadsantihiin ilaahay idin barakeeyo waxa waaye maalin walba asxaab cusub iyo subscribe cusub baan ugu soo biro waa ku mahadsantihiin asxaabteen horena adinkana aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaad mar labaad iyo mar saddexaad aan isla socono الدجاج ama hilib digaag oo shafka digaaga oo soo jarjaray si yar u soo jarjaray way aan kuskus yar ka dhigay ma sha Allah suqaar amal baan u sameeyay duu ilaahay idmo qudaartan waa u jeedaan ayadana marka hore waxaan iska karkarinayaa digaaga biyo yar oo karsan baan cabaar iyo cusbaan dabka la saaray kadibna waan ka dejinayaa sidoo kale qudaar baan haystaa meeshan karooto basal tuun bataati macaan digsi baan hadda saliid ku soo shubtay wax yar oo saliid aan badnayn kabacdina toon iyo basal aan soo jarjaray
ayaan ku shubay. intaana wax yar shiilayaa ilaa ay guduud iga noqoto. taanay brownkaas igu noqotay ama golden. haddana waxaan ku darsanayaa qudaartan aan ku darsanayaa waa barbarooniyo, basbaas, karooto iyo bataati macaan. taanay noogu shiilantay bataati macaankii iyo karootadii, basashii, toontii, barbarooniyadii, basbaaskii sidaana noogu wada shiilmeen. haddana waxaan ku daraynaa digaagii oo markii hore aan biyo karsan kusoo haftinay aan bartanka u dhigno. xawaashiyadii baan ku darsanayaa haddana huruud iyo basbaas iyo babrika iyo xawaashyo fara badan oo isku jira, filfil shiidan ilaa 4 iyo 5 xawaash oo kala nooca. adiga xawaashkii aad haysataad ku darsan kartaa hadduu ilaahay idmo. kabsar caleentii baan kusoo darsaday. hadda waa noo diyaar digaageeni iyo suugadeeni. haddana insha Allah waxaan ku darsanaa kareemkan ama maxaan idhahdaa kiiskan oo cuntada lagu kariyo, hal qaado ah. halkaa qaadaan ku darsaday. si fiican baan u dhexgelinayaa oo ugu dhex walaaqayaa. sidaa quruxda badan bay kusoo baxday suugadeeni. haddana dabkaan ka qaadaynaa. waa u dhammaatay, wax u dhiman ma lahan. insha Allah videoga noo like gareeya, subscribe-ka noo saara. aad baa u mahadsantihiin. ilaahay ha idin barakeeyo. waxa waaye maalin walba asxaab cusub iyo subscribe cusub baa nagu soo biro. waa ku mahadsantihiin. asxaabteen horena adinkana aad iyo aad baad u mahadsantihiin. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aan isla soconno. labadooda iyada markii uu bislaynaysa. xabadii u horeysay waa dubay, waa u jeedaa. sidaanan kusoo wadahayaa. hubaashi haddii aad sidaan u isticmaasho ama aad sidaan u dubato canjeeladaada ama quraacdaada maalinlaha, wax weyn ayaa iska bedelaya noloshaada, nolosha qoyskaaga iyo tan caruurtaadaba haddii ilaahay idmo. canjeerada ama rootiga ama sabaayada ama jabaatiga aad dubanayso haddii aad u isticmaasho qaabkan oo taladan aad qaadato, canjeerada markii wax badan ayaa iska bedeli doona qaabkii aad quraacdaada hore ugu samaysan jirtay. sababtoo ah quraacdii hore aad samaysan jirtay iyo quraacdan ayagoo wada isku mid ah oo canjeero wada ah ama rooti wada ah ama sabaayad ama jabaati wada ah, haddana farqi weyn baa u dhexeeya oo way kala duwan yihiin. sida ay iyagu u kala duwan yihiin ayay noloshaadii hore iyo noloshaada dambana u kala duwanaan doontaa. waana rajaynayaa in aad ka heli doontaan talooyinkana aad raaci doontaan kuna baraari doontaan. assalaam waxaan ku haysanaa waa quraacdeena saaka waxay ka kooban tahay ashyaa badan ama shayyo badan. waxaan haddaan idin tusayo oon gacanta ku haya waa sarreen shiidan, waa mushaari ama boorash sarreenka shiidan ah. waa sarreen shiidan oo sidii jariirtii camal ah, oo markii aad kariso wuxuu noqonayaa wax yar oo soor camal. sideed buu u adeegaya sida mushaarida caadiga iskuma jiido.
midaan labaadan hadda idiin hayo oon gacanta ku hayana waa boorashkeeni caadiga oo gasacadaha ku jiray oo qamadigii oo dhambalan ama balbalaaran oo xoogaa aan maaragtay shiidneyn ah. labadooduba waa qamadi oo qamadi bay ka samaysan yihiin laakiin qaabkooda ayaa kala duwan oo midna waa shiidan yahay midna ma shiidna oo waa boorashkii caadiga ah. boorashkan ama mushaaridan meel walba ayay taalaa dal iyo dibadba. waa tii gasacadaha ku jirtay iyo iyadiyo jariir ah. insha allahu tacaala marka waan isticmaalaynaa quraacdeena saaka ayaan u isticmaalaynaa hadduu ilaahay idmo. saad u jeedaanna mishintan wax lagu shiida ayaan ku shubanayaa 2 koob oo midna uu yahay midda jariirta midka kalena uu yahay midda dhambalka ah ama tii gasacadaha ku jirtay oo kale uu yahay ayaan ku isticmaalaya insha allah oon halkan ku shubanaya. run ahaantii markii aad quraacdaada ama qadadaada ama cashadaada wax kastood bur ka samaynayso aad u isticmaasho waad mahadin doontaa hadduu ilaahay idmo. hadda koobkii labaad ayaan ku shubanaya sida aad u jeedaanba kabacdina insha allahu tacaala waan shiidaynaa. markii aan shiidno waxaan u budaynaynaa sida burka oo kale ka dhigaynaa. looma baahna in ay taagtaagnaato labadooda mid awal bay shiidnayd laakiin tan markii lagu daro buday isla noqonayaan ama powder bay isla noqonayaan si ay burka iyo ayagu isku qabsadaan aysan u noqon wax taagtaag leh ama ay iyadiyo nool ka soo baxbaxdo. marka insha allahu tacaala asxaabay sidaasaan budo iyo waxaan uga dhigaynaa bur la sii shiiday camal bay noqonaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa haddii aadan haysan mishintan ee tan gacanta aad haysatid oo wax lagu shiido ayada lafteeda waad ku shiidi kartaa intaad biyo ku darto. hadda burkeeni ama mushaarideenii budadaas ayay noo noqotay sidaasay powder u noqotay ayada iyo burka kale ma garanaysid waa sidii burkii oo kale. markaas aad bay budo u tahay run ahaantii wax yar xataa kama dareemaysid oo buurbuur ah ama jariira inay ku jiraan. baaquligan ku shubanayna markaan baaquliga ku shubanno insha allah si aan ugu darno burkii aan u diyaarinay. burka iyo mushaarida ama shurbada aad isku darayso waxaa loo baahan yahay qiyaas inay noqoto. qiyaastuna waxay ku xiran tahay adiga familka ama cidda aad u samaynayso inta ay dhan yihiin inaad isku qiyaasataa fiican. ma ahan in aad kala badiso oo aad kiilo buro ku darto 2 qaado oo mushaari ah. hadda burkan aan ku darayo waa rubac bur ah ayadana 2 camal bay ahayd. mar walba waxaa loo baahan yahay inuu burku xoogaa badan yahay. hadday isla ekaadaan ma fiicna oo waxa weeyaan waxay kaaga badanaysa mushaarida. 2 qaado ama qaadiya half sokor ayaan ku darsada. sidoo kale waxaan ku darsanayaa waa baking powder. fixiso waad ku darsan kartaa ama qamiiriso laakiin aniga tan aan hadda isticmaalayo waa baking. labaduba waa qamiir wayna ku fixinayaan. waxaan u sii doortay bakinka waxa weeye in aan ogahay ama aan rabo inuu iiga dhigo sidii pancake oo kale jaradaydu aysan noqon mid jiitamaysa ay noqoto sidii keegi ama dolshihii mid u kala daadanaysa. qaadada fiideeda cusbaa waan ku darsaday intaanan si fiican isugu dhex walaaqaya marka oon isku dhex gelinaya si ay si fiican isugu dhex galaan oona hadhowtadii maaragtay aanan ugu warwareerin qasitaankeeda. sidoo kale asxaabay waxaan ku darsanayaa 1 xabo oo ukunta 1 xabo waad ka badsan kartaa 2 iyo 3 waad ka dhigan kartaa. caruurta qaar baan ukunta caadi markay tahay cunin ama markii la kariyo ama markii la shiilo. haddii aad rabto marka ilmihii inaad ukuntii sidaas ay ku diideen aad sidaan ku siiso wixii aad u karinayso ugu badinaysa oo cuntada hadday canjeero tahay hadday rooti tahay wax kastood u samaynayso ayaad cusbada ugu badinaysaa. haddana biyaheeni oo qandaca ayaan ku shubanay. uma baahna in aad mishinta lagu garaaco wax aad ku garaacdo umana baahna inaad gacanta geliso. xurbinkan bas ayaa ku filan. xurbinkaanaan ku xurbinaya ilaa iyo ay iska kay dhex galaan. biyahana markastoon u baahdo waan ku shubanaya ilaa sidii aan rabay iyo qiyaastii aan rabay uu ka tagayana waxaan ku walaaqaya ama aan ku xurbinaya ama aan ku qasaya. xurbinkan aad u jeedaan oo ah midka dolshaha ama wax lagu garaaco waxyaabaha la garaacayo la qasayo. uma baahna garaacitaan sidii canjeeradii caadiga ahayd inaad u garaacdo. umana baahna in aad gacan la gasho ama aad mishin ku garaacdo. kaliya intaasaa ku filan sababtoo ah
burka marka uu kaligiis yahay uu isqabsanayo wuxuu u baahan yahay in la kala fujiyo la garaaco ama mishin lagu garaaco ama gacan lagu qaso si uusan isugu dhegdhegin laakiin markii sidan aad ugu darsato mushaaridan ama boodarkan uma baahna garaacitaan iskumana dhagayo ismana qabsanayo si toos ah ayaa markaad qaado ama xurbinkan ku walaaqdo ood ku qasto si toos ayuu wuxuu u noqonayaa sidii aad adigu ka rabtay biyaha ayaan kusii kordhisanayaa weli waxaan dareemayaa in qiyaastii aan ka rabay uusan ahayn mar walba waa inaad qiyaasta biyaha la socoto oodan biyaha ka badin haddii aad biyo ka dhigto hadhow markaad ku dubayso waad ku dhibaatoonaysaa wayna kaa gogo'aysaa canjeeladu hadday adag tahayna sidoo kale ma fiicna laakiin mar walba waa inaad qiyaastaada la socoto hadda waxaan maraynaa gabagabadii iyo guntii qasitaankii canjeeladeennii waana diyaar sidaas ayay diyaar ku tahay sidii aan rabay bayna ii maraysaa markaa saxaabteeda sharafta leh mar walbana waa in aad qiyaasatood fiiriso in uu kaa adag yahay ama uu kuu jilicsan yahay waa kaasa maasha allah quruxdaas kusoo baxay smooth wax burbuura ma lahan isaga dhan uu isku tiran yahay waxa weeye waa wada liisho haddana birta ayaan dabka saartay wuuna soo kacay oo wuu noo kacsan yahay ama wuu noo faxsan yahay walaalahayga qaaliga hadda birtii baan dabka soo saartay insha allahu tacaala waxaanan aadaynaa in aan dubno canjeeradeennii si aan saakayto caruurta iyo reerka oo dhan u siino quraac aada u wanaagsan oo ka fiican quraacihii hore oo awal burkii caddaa oo la siin jiray waa rajeynaya adiguna inaad insha allahu tacaala saaka wixii ka bilowda aad ka bedeli doonto canjeeradii caddayd calool istaagii mindhiciradu ma shiidi karaan run ahaantii dhib bay ku qabaan burku markuu cad yahay cabadii noo u horreysay baan hadda dabka saartay qaadadana waad ku duban kartaa haddii aad haysato furka canjeerada lagu dubana waad ku duban kartaa waa isku aad ku dubtid waa kii kale run ahaantii mar walbana waxaa fiican qamadiga aad isticmaalayso inuu noqdo midka madow kafeegayga iska soo qaatay oon meesha isaga dul cabayaa kursigayga ii yaala alxamdulillaah halkaasaan canjeeladeena dubanayna asxaabay labada birood ayagaan isku daboolayaa birtu dabool ma lahan marka maadaama ayna dabool lahayn si ay dhaqso iigu guduudato canjeeradayda tan kalaan ku daboolayaa ayadaana maaragtay labadooda qafiifsan midda kale dhaqso iima guduudinaysa canjeelada waqti bay qaadanaysaa tan laakiin waa qafiif ayadaa durba ii guduudinaysa insha allahu tacaala markii canjeeladeena sidaana kusoo dhammaynaynaa haddii alla idmo saasay waa ujeedaan doolshe qurux bay kusoo baxday run ahaantii isma dhahaysid qamadi iyo waxaasaa ku jira aad bay u qurux badan tahay maasha allah haddana asxaabay waxaan u samaysanayaa digirtii aan ku cuni lahaa digirtan waa digirta gasacadaha ku jirta oo diyaarsan digsigaas ayaan ku saartay basal iyo xawaash iyo waxbaan isku darsaday adiga iska carfis digirtii digsi ku jirtay gasacana wataan halkaasaan ku shubtay laba jeer bay soo kartay uma baahna karis way diyaarsantahay hadda quraacdeeni sidaanay diyaar ku canjeeradeeni iyo maraqeeni ama digirteeni waa kana haddana waan tasti garanaynaa sidii caadada noo ahayd ama waan dhadhaminaynaa yummy runtii inaba caadi ma ahan waa wax cajiib ah videoga like saar saaxiibada la sii wadaag waa rajaynayaa sidan marka qaybtaanuna waxa weeyaan waa bur si naqshadaysan loo sameeyay wadankan aan hadda joogno ayaga magac kale u yaqaanaano ayaga dhaqamadooda gaalada ah maasha allah aad buu u qurux badan yahay haddana waxaan guda gelaynaa samayntiisa iyo qaabkaan u diyaarin lahayn halka waxa igu jira waa 2 qaado oo sokor ah sokorta cad weeye haddii aad sokorta jeclaan waad iska yareyn kartaa ama waad iska dhaafi kartaa haddii aad jeceshayna intii aad jeceshay qiyaastaada adiga wixii aad sameynaysid ayaad isticmaali kartaa insha allahu tacaala mar walba sokorta wax yar oo dhadhana inay siiso ayna kaagana badnaanin baa maanta waxaan wada muuqaal qurux badan hadduu ilaahay halkan waxa igu jira waa 1 qaado buuxdo sokor ah qaado haafkeedu oo cusbo ah sidoo kale halkan waxa igu jira waa butter 2 jab oo butter ah ama subag hal xabo ukun
inaba caadi ma aha quraacda iyo qado wax alla wixii aad rabto ayaad ka dhiganaysaa sidoo kale qaada hafkeeda fixisaa weeye ama qamiiriso ama qamiir qof walba suu u yaqaan intaana marka hore isku burburinaynaa ama isdhexgelinaynaa ama isku qasaynaa hadduu ilaahay idmo si ay si fiican isugu keen dhexgalaan saasaan isku dhexgeliyey haddana waxaan ku darayaa waa hal qaado hal koob oo yar baaquliga yarka muggiis oo ah maazina tan xalwada lagu sameeyo ma ahan waa midda waxyaabaha macmacaanka lagu daro oo ka dhigta inay burbur noqdaan oo aysan sidii burkii caadiga ah camalkaa noqonay wax kala daadanayo oo jileeca ku noqdaan taasay kaa caawinaysaa oo ujeedaan hadda markaan ku daray maasha allah durbo way isqabsataa halkooba caano qandacahan ku darsanaya waad ka kaaftoomi kartaa caanaha biyaad ku darsan kartaa biyo diiran mar walba laakiin waxaa fiican wixii aad ku daraysaa inay yihiin wax diiran saasaa kuu fiican sababtoo ah markii ay diiran yihiin way kuu hagaagayaan haddana waxaan ku darsanaynaa waa burkii tartiib baan burka ugu daraayo kuma wada daraayo waa iska reebaya qaadaan la gelaya markaan kalar weeye jaallo ah qurux buu kaaga dhigaya midab qurux badan oo dahabi dahabi uu kuu siinaya haddana asxaabay si fiican baa u fidinaya insha allah saasuu jaallo u noqday maasha allah sidaa jileeca quruxda badan buu noqday kalarka quruxda badan oo jaallahana wuu noqday marka haddana 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ayaan hadduu ilaahay idmo aan daboolaya insha allah 10 daqiiqaan ka maqnaa wax yar buu soo faxay in xoog iga faxana ma rabo hadduu ilaahay idmo wax buro kuma fidinaayo haba yaraatee wax buro aan ku fidinaayo ma laha uma baahna in bur lagu fidiyo saasaa gabal gabal yar ugu soo jaraysaa saasaad u jaraysaa burkan inaba caadi maha ilmuhu aad bay u jecel yihiin saa markaad tiraahdo waxaad samaynaysaa saanad dhahay saasaad dhahaysaa kadibna saas afkooraasaa uga soo laabaysaa dhinaca kalena saasaad ka soo dhahaysaa mas isgaloolay camal si tartiiba aad saa u laabaysaa saa u laabaysaa uma baahna in waqti badan aad geliso labada dhinac dhinacan hore aad u laabtay ma dhinaca kale kan kalena u soo laabaysaa saas es camal ama wax galoolan oo labada dhinac mas iska soo laabay camal baad ka dhigaysaa ma fahantay marka uma baahna in aad ku dhibtootaba fudayd weeye dhib dhan ma lahan waaweynna ha ka dhigin waaweyn haddaad ka dhigto marka xoogaa soo yara faxo inuu kaa halaabaa dhici karta laakiin waaweyn ha ka dhigin says yaroo dhexdhexaad ahon aadna u yarayn waaweyn fuuxfuux kaa noqonayan aan ahayn baa fiican inaad ka dhigto saasaad leedahay mar labaad saas mar saddexaad saas dhinaca kale mar koowaad mar labaad mar saddexaad saas okay waa diyaar hadda maasha allah sida quruxda badan buu kasoo baxay haddana waxaan marinayaa wax yar oo bataran korka ka marinayaa batar baad korka ka marsan kartaa haddaad rabtana ukun iyo caano iyo waxa la wixii aad rabto waxa uu diidaayo ma lahan wax kasta oo aad adigu danaynaysaad korka ka marsan kartaa kaliya waxaa laga rabaa inay xoogaa dhalaal uu kuu yeesho uu kuu guduuto marka
insha allahu tacaala waa rajeynaya inaad idinkuna ka faa'iidi doontaan. carruurta aad bay u jecel yihiin bahalkan, inaba caadi maaha, swedishkaa samaysta. marka ilmaha hadday bartaan. hadda waxaan meelahaas waxaan ka gelgelinaya ama ka saarsaarayaa blueberry, ama haddii aad haysato sabiib, haddaad haysato sabiib baad kaga samaysan kartaa. xoogaa qurux buu kuu siinaya, kalar qurux badan oo indha aad moodid buu kuugu yeelayaa. haddaad rabto iska daysana wax dhiba ma lahan, keliya just in lagu qurxiyo weeyaan, oo uu kuu qurxiyo keliya loo gelgelinayaa ee wax kale maaha. hadda waa kaasaa waa noo diyaar, sidaa quruxda badan buu noogu soo baxay maasha allah. guduud iyo madow fruud ah baan ka geliyey labada dhinac, waan ku sharaxay. idinkana waa rajeynaa inaad ka hesheen. marka hadda dabka noo gelinaya maasha allah, sidan quruxda badan buu noogu soo baxay. waa kasaa qurux dahabi golden, jileecu qabana ma malayn kartid. waan rajeynayaa in laga wada faa'iidi doono hadduu ilaahay idmo. fruudkiina qurux indhahaasuu ka dhigay maasha allah. maasha allah, saasuu u jilicsan waa ujeedaan saxaabe. isaga dhan jileecaas waaye. macaankana ma malayn kartid, asaga dhan caraf maasha allah, xoog buu u carfaaya run ahaantii. waxa weeye inaba caadi maaha. Yummy.